wasaaradda arrimaha guduhu shaqo aad u macaan oo horay u socoto muuqatay ka shaqeynaysa insha Allah waana inoo muuqataa meel kasto kamida dalka in ay shaqo ka hayso boocama ugu dambeysay oo arkayseen in barasaabkii gobolku sool uu halka wafdi dheer ku maray ilaa xuduudaha waxay ka mid tahay wasaaradda dakhliga siyaasadeeda ama baahinta maamulka dadka mujtamaca ah ee halka deganna sida uu soo dhaweynayo waa arkayseen la tashigooda iyo in la badiyo waxaan kula talin lahaa wasiirka in lala tashado dadka waaweyn ee deegaanka ah mas'uulka loo diraana uu iyaga taladooda wax ku oolka qaato mar haddaan dadkii meesha deganaa aan lala tashan oo wixii u wanaagsan iyo waxa u daran aan laga qorin markaana aan wixii u wanaagsanaa lagu shaqayn halka waxa imanaysa iska hor imaad marka taas waa ku sii boorin lahaa wasiirku si macaan buu u wadaa ilaa khayr asiye in laga kordhiyo baan jecelahay ciidamada booliiska waxaa jira degmooyin aan ciidan booliis lahayn waana degmo saldhigii waa u samaysan yahay ma garan karo marka waxa dhowr sano degmada Dharkayn meeshii booliisku waa dhisan yahay waa iska xiran yahay waxaan ku talin lahaa in bal maamulku halka u gundadago oo ay geeyaan booliiskii على الأقل mar hadii maayarkii joogo in taliyaal iyo wuxuu loo sameeyo meeshii booliis laga abuuro ciidamadiina waa ku jiraan kuwa meesha laftirkooda degan marka halka inta yar baan ku dari lahaa in la si gaar ah loo eego xuduudna weeye hadeer arrinkii laga hadlayay xildhibaanadu ka hadlayeen dadka iska galootiga meeshu waa xuduud Dharkayn Ethiopiankuna dhinac buu degan yahay Somalilanduna degan tahay meeshii Ethiopianka controlkii bay leedahay oo askarigi ciidanka ay bay leedahay oo canshuurtii bay gurayaan taayadii baa maamulkii wax gaarsiiyay maayarkii baa jooga in intii kala lagu daro wixii dadka ku xiranna la weydiiyo haday iyagu sagzaagayaan oo iyagu dib u dhaca sameynayaan iyagii laga xisaabtamo maalin walba way soo weydiiyaan xilibaan miyaan magaalada dawladda maamulkeeda intii kala soo gaareen baa maalin walba leegu yiraa iskuulkii sidoo kale mar haddaan arday iyo maamul la helin iyo booliis meeshii maamulkii ma gaaraan marka taa intaana waa ku dari lahaa maamulka gobolku inuu arrinka ka howlgalo wasiirkuna si dhiib leh ula socdo